marka shan cilmi in la barto yaa inagu yaadhaya eega markaan leeyahay cilmiga waqti badan waa la haystaa ikhwaani fillah waqti badan waa inaga khasaaraa jirta culummadiina way joogaan shan cilmi ha la barto cilmiga cilmi luqada carabiga ha la barto luqada carabiga wax adag maaha naxwaheega sarfigeega macallin baad oranaysaa sheekh muuse waxaad oranaysaa dawro noo samee 2 cisho ah 3 cisho ah naxwaha noogu dhammee jusul awalkii naxwal waadix yaraa haddana sanadka lisaanigii amba ujruumiyadii wax luqa carabiya waa muftaaxi diinta weeyaan iminka matalan suuratu ljumca waxaa ku qoran idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc dalikum khayru lakum in kuntum faidaa qutilatu faantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah culummadu waxay dhahdaan labada amaree hore waa waajib labada amaree dambana waa mubaax iyo sunne maxay ku kala saareen amar waa amarun sooma ilahi wuxuu uhi idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumca maxaa dhi fascaw dikriga ilah u yaaca okay waxaa dhi hadduu eedaamo salaada jumca muadinku maxaa dhacay kula shayin maa cada salaati waa xaaraan inaan qabanno waa xaaraan haddii kol aadaanu thani u dhaco okay fascaw ilaa dirlah baa laga soo qatay wadaru lbayc baa laga soo qatay wax baycii ka taga yani waxay karta baycii ka taga shaqadii ka taga wax walba ka taga waa amarkaas waa waajib xaggidan waxaa idhi haddii salaaddii la tukado maxaa idhi fantashiruu fi lardi dhulka taga kaca culummada waxay dhahan waa mubaax kii shaqa u talana oo bixi kii shaqa olina de muxuu tagi aqligiisu ka tagi hadday shaqaba kuu olin waxaad haysan jirin maxaad samaynaysaa gurigaas ka tagaysaa waxaa la yidhi marka halkee laga keenay af carabiga laga soo qaday waxaa dhahdaa idaa jaa alamru bacda annahyi yufiidu libaax hadduu amar yimaado nahyi kadib muxuu faa'iideynayaa mubaax oo amarku nahyigu muxuu ahaa taxriimu lbayc in la shaqeeyo salaadii la tukanayo nahyi baa ahayd okay amar baa yimid bacda nahyi waxaa la yidhi fantashiruu fi lardi maxay faa'iideynaysaa baa la yidhi mubaax waa af carabiga caynkaas waxaan kaa yidhi laa takhruj min almasjid maskidka ka bixin anoo de xoog kugu lawayaan anoo xoog laway iska socona dad aadan laa takhruj min almasjid baan kaa yidhi bacda in yarun baan kaa yidhi iska soco waxay dhataa dad doon iska soco hadaa doonna iska fadhi saasaa laga fahmaya af carabiga laga fahmaya marka ikhwaanii fillah marka af carabiga waa muftax marka af carabiga barashadiisu waa muhiim nabiguna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejiye ilahi muxuu ku tilmaamay maxaa dhi wahada maxaa dhi qur-aankani qur'aanan carabiyan gayra di ciwaj waa qur'aan carabiya qur-aanka af soomaali maaha qur-aanka af faransiis maaha qur-aanka af ingiriis maaha weligaa ayaa allaha tarjamada soo qaadata traditionka ingiliishka saa u furfuro alxamdu haddaad akhrita lilahi rabi alcaalamiin waxaan muxuu ku hadlay af yaroo ciyaar baan moodi anuu af soomaaliga arkay markii lagu turjumay qur-aanka wadaa waxa af yar waxa moodaysa wax caruura faransiiskana sida laga sheegay uu ka daray ingiliishkuna uu ka daray baa ma dhici karto inaa qur'aanka loo turjumo af kale waxa la turjumay waa maxay waa macanihiisii waxaa dhahdaa tarjamatu macaaniihi waxaa la turjumay macnihii qur'aanka laakiin qur'aanka lama turjumi karo oo ilaahay yaa turjumi kara hadalkiisa qolma turjumi kara marka taas waa midda koobaad waa luqadda carabiga waa in la barto cilmiga labaad in la bartaa waa maxay ya cilmiga labaad ee in la bartaa waa cilmu tafsiirka kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala sideen u fasirnaa sideen u fahanaa tafsiir baan ku fahmaynaa waa inaan baranno isagana waa cilmi isaguna maaha muxaadaro maaha waa cilmi cilmiga saddexaad ee muhiimka waxa weeyaan in la barto axaadiista rasuulka sallam oo loo barto si tadaruja axaadiista arbaciinka laga bilaabo saalixiinka lagu xigsiiyo buluuqulmaraam kitaab dhahdo lagu xigsiiyo wahaakada oon la degdegin dhalinyaro maan dhowta meel ku ururtay baa iyadho waxay idhahdeen sheekh kitaabba noo bilaabi oo maxaa nii akhriyaa baan ka yidhi dee sheekh fatxulbaariga waxaad noo akhrinaysaa bay dhahdeen saxiixu muslimka anaaba saxiix muslimka fahmayne saxiix muslim ha saxiixu muslim ma la mari karaa ha waa la mari karaa laakin saxiix muslim yaa marsan karaa saxiix bukhaari iyo marsan kara weliba fatxulbaariga ka akhrisan karaa waa masaa'il daqiiqa ku jira culuma akhrisan karta ha degdegin markaa xadiis arbaciinka dhamme isla dhamayna soomeen kuxiisii markaa riyaad saalixiin saalixiinka acab kuxiisii buluuqulmaraamka dhamme haddaad doono shuruuxiisii subul salaam iyo saa yar u socod yar qoyar u socod qodax maxaa dhadaa ma muddo
ya daarta hoosta ka soo dhis marka xadiiska cilmigaa waa muhim jira. arrinta saddexaad oo in la bartaa waa fiqiga afaraad baa jira axkaamta sharciga ah fiqigiisa waa inaan barano xalaalun wa xaraam waajibun wa sunna mubaaxun maxay fiqigu waa cajiib moogtahay noloshii oo dhan baa ku jirta ayaan dhaweyto waxaan akhriyay kitaab mana dhammaanayna waxa cajiibka anuu fiqiga jecel fiqigu ma dhammaanay ilaa qiyaamo dhacayo kolba kitaab baa laga qoraya sheekh aan aad u jecelahay oo la dhahdo waa kurdi cali alqarra daaqi la dhahdo iyaa 25 sano wuxuu dul fadhiyay kitaab wuxuu u bixiyay fiqhu lmiisaan ya معاتل الميزان مقبطة فقه الميزان ما ميزان كحلوك لقدني ما سورة القرآن سورة الحديد إلهي وحكوسه دجي ما هاي يا ما هي أنبياء ممكن لا صدره أرسل رسولنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان كتاب كمحل صعدة ميزان بالله صعدة كتاب قدو ميزان وحصوص هذا الشباب shabaabka dadku waxay la yaaban yihiin waa miisaan laan shabaabku waa miisaan laan weeyaan marka waxaaba ka soo bixi kuwa ka daray annagu markii ugu horeysay qaacidan la yaabanin daacish baa yimid daacish baan la yaabanin shabaab baa yimid buku maxaa buku xaram baa yimid tuku xaram baan waxa de garan baan ilaahay naga qabtay balaayadan waxa sameeynaya waxa weeyaan laba qol ah sameeyay mukhaabaraadka gaaladuna way sameeyaan ragga gaalada kale yani Ameerikaanka iyo Yuhuudda iyo mukhaabaraadka carabta Sacuudiga iyo Masar waxaan sameeyaa inta la sameeyaa berigii in ay fiis ku qabsadeen jabhadii loo jiray Algeria ay qabsadeen si dadka loo nacsiyo islaamka waxa la sameeyay gadad mukhaabaraadka Faransiiska soo sameeyay waxa lagu soo sameeyay sirdoonka Faransiiska jandarka Faransiiska soo sameeyay waa gadad waxa loo gelinayay mukhaabaraadka Algeria marka dadka gowracayeen Allahu akbar لا إله قلت تعلق ذاتك السلام بدأ وذاتك إنه حديثي بدأت ولا ينام كرا لا حول ولا قوة إلا بالله وحي نقطة الناج ذاتك ديت من خلاص وقدر أنا كان الصومالي دو من سجاشنكي إلا الله بدي يكون يشاني طبعا بدي يكون طبعا كي وحي صومالي كو قناع سنيد حلوة وداد حلي وداد غير كينا وفشل مي الدون كوي مغلين رجع عداي وحي لا تبص عليه wadaadka ahaa shabaab u sameeya ku mirdhi maanta wadaadka maxal baa maanta ya wadaadka maxal baa maanta waxba looma dhiibto waxaa maxaa keenay waxaa keenay waa la nacsiiyey waa khuto jahannamiya oo la dhigay khutadka baa laga shaqeynaya okay ikhwaani fillah sheekha muxuu qoray wuxuu yidhi fiqul miisaan markaan qorayay 25 sano aayaddaa madaxa iga qabsatay muxuu ilaahay u yidhi وأنزل معهم الكتاب والميزان مع الكتاب هي ميزان سكر ودغه والله قد كان ليقوم الناس بالقسط إلهي محو سورة الرحمن ووضع الميزان وقول مركي دبنا الله تدخوا في الميزان ولا تخسروا الميزان لماذا بولي وحنو دبو كدبا تغي شان إيا الله باتصر فيقا فكرية ومجتهد بوغاري وحو قري مركا كتاب وبحي فقه الميزان أو فقهها wuxuu ka soo saaray adduunka dhan ilaahay inuu miisaan ku dajiyey quraankan miisaan ku dajiyey qofka inuu fahmo u baahan waa inuu horta miisaan ka fahmo qof bila miisaan ma soconayo marka fiqigu waa muhiim inaad diinteena fahmo haddaan diinta fahmi weyno halis baan ku jirnaa walidaalika waxaad arkaysiin maanta adduunka dhacay waa maxay waa fahmi la'aan amba waa fahmi xun amba waa fahmi la'aan weeyaan fahmiga xun baana ka xun fahmi la'aanta maxay ka yidhaahdeen reer nabi shucayb maxay ka yidhahdeen ما نفقه كثيرا مما تقول وبهالله يا سوء فاهمين يا waxay ku leeyahay waxa leedahay waxba kama fahmino ma nafqahu nabi muuse ilaahay u bari wuxuu li yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Soomaalidan waxay tiri naas u yiri naas u qaadi iminka inteena oo dhan oo hadal wada dhageysayna baxayna waxaan leenahay wadaadku saabulaha war saabulaha naga dabaashaa wallahi saasulaha kan kale nimba siduu iskaga dhaadhiciyey marka miisaanka weyn hadda miisaan leedahay si mid aan wada fahmina fiqul miisaanku waa muhiim sheekh aadanu marka cilmiga farado baahan waa maxay waa fiqiga cilmiga waa muhiim marka fiqigu waa usuushiisi qawaacidiisi niba inta kan maanta qawaacida aan dhigana waa muhiim
qawaacid baan baranayna sheekh kutub noo marnay waa muhiim sheeka ma wuxuu noo marnay waa wixii diinta laga soo saaray saa laga soo guray waa laga soo guray waa laga soo guray waxaana looga dhigay fiqi ya ay dowlad islaam hadday qaadato shariicada islaamka say u dabaqi waa fudeed maanta fiqiga bay ku noqonaysaa fiqiga ku qoranta ma aha kuma noqonayso hadallada shabaab iyo balaawiyinka kuma noqonayso fiqiga ku noqonaysa fiqiga marka fiqigii baa iska yaalla axkaamtii baa iska taalla mufasala weliba waa la taqniiniyey iminka qaanuun baa laga dhigay dad buu ilahay usoo jeediyey majaalis fiqiyaa la sameeyey sacuudiga laga sameeyey kuwait baa laga sameeyey masr baa laga sameeyey bakistan baa laga sameeyey malaysia laga sameeyey turkiga laga sameeyey yani waxaasoo dhan waxa weyaan waa la taqniinayaa maadamaad maxaad u baahan tahay xeerka qoyska ku yaala waa mucad waxaan u baahan tahay xeerka waxaan bahay baca mushtarka waa mucad maxaad u baahan tahay waxaan u baahanahay xeerka maaragtay cilaaqaadka caalamiga ah xiriirka caalamiga waxaan wax kaas dastuur islaamiya inaan sameydano u yaala fuqahadii ma fadhiisan oo ijtihaadiyaan yufakiruun yutawiruun marka taasina waa afraad ban cilmiga shanaad u baahana waa cilmiga fikriga noloshan socota islaamku suuga jawaabaya waa mawduuca waa muhiim noloshan socotee maalin walba waxay imanayaan saynu ka jawaabnaa ya fikir islaamiya laga jawaabaya ya kitaabka waxaa la dhahdaa laba kitaab baa dhahdaa adduunka maanta way gelgeliyeen kitaab yurub buu gelgeliyey kitaabna adduunka o dhan buu gelgeliyey kitaabka yurub gelgeliyey waxaa dhahdaa waa kitaabka u qoray ninka dhahda muraad hofeman wuxuu ahaa ambasadeerkii safiirkii dowladda jarmalka ee morocco wuxuu qoray kitaab uu bixiyey alislaam ka badiil islaamku dadkan wareeray isagaa xal u ah maanta wuxuu islaamku xal ma islaamku dadku wereeriyaa weliba may caalamkan wareeray islaamka u xala uu islaamay uu qoray kitaabka uu dhigay kitaabka loo maandhood qoray dariiq ilaa maka dhacdo sheekh hore ku dayday kitaabka hazi Europa Yurub oo dhan ka dhigay Ali Izzat bi Kofetish madaxweynihii wadanka Bosniana wuxuu qoray kitaab uu bixiyay al-islaamu bayna sharqi wal gharbi islaamkii oo dhex yaala bariga iyo galbeedka oo fikir weyn ah waxa dhahay hada kitaabu hazza al-aalam dunidu dhan buu qarqariyay dunidu dhan baa gagirtay markuu qoray sheekhaas kitaabka waxa lagu tuujiyay kullu luqaat wadaadka kitaabka markuu dhameeyay axad al-ulama ba akhriyay kitaabkaas oo filosofka masar ugu weyna ya Abdulhamid Masir brada wuxuu yiri kitaabka hadaan akhrin lahaa inta aan kutubta qorin wuxuu ii tari lahaa wax badan maanta inta aan soo duurayay buu soo qaban lahaa oo ii soo wadin lahaa nin kalena wuxuu yiri arjuu buri inuu ilaahay ninka Ali Izzat ayaanta qiyaamaha ilaahay ku galiyo jannada kitaabka qorista uu qoray inuu jannada ku galo iyo ilaahay ka rajaynayo tabaaraka taala marka shanta cilmi aan u baahanahay shanta cilmi waxay nooga baahan tahay waqtigeena aan nidaamino waqtigeena organisayno waqtina aan shaqaysano waqtina aan ciyaalka korsano waqtina aan wax barano yaan u baahanahay miskiidka wax ku barano madrasada wax ku barano la is ururiyo la isku tago la yiraahdo war seminar han qaadano oo nolosha waa la habeeya nolosha man la khudata lahu فالآخرون يسمعون له الخطط مرة قفك أم بلانك لهين ذاتك بلانك وسمانية هذا أدو بلانك لهين بلانك يأكو سمانية ذاتك لا أكو سمانية خلاص بلانك ما راعي بلانك ما أنت واحد محاولة كرسرنا محاب باكي محاب باورك أوبر فاقة أوبر لو كرسين بريت ولا هولن بالله صاري وأكو بودي ناو كاكله ساعة ضمنا تلك بالله صاري وأكو بوديون الأخيرة ولا قبتوها وان سواء أصلين بالغرب ما يكسان كل بقف وصو آسي نما وصو نقرنا سماها هي ما تيل بقى ما نقصو نقرنا بلاني قاسا وجست بالوصو آسي ولا صو نقرنا هذا الحياة ليست كلها يا أخي بورنا ضفر يورد معها مسكحة قرمي وحلي قلبي قرم وحلي جيركي قرم وحلي يا مركها قفك بنيانك وينو إصحابه هي وين مركها وين خطية بلانك سمينه كتاب في إنجليش بكو قريه كتاب كعربي نكو فريق قريه كتاب كان قال قري ستيفن ما هذا واحد هذا تضبط عادو يقف كان نجاح تضبط دقن يا تضبط دقن يقف كان نجاح بعد هذا دقن هذا وقف دقن وتضبط دقن يمكن هو قري توم بو قري دقن سيدات كوسا حبو قري waxa ugu macaan ee kitaabkaasi ku jira waxa weeyaan dadka adduunka wax taray ee noloshoodana wax taray ee wax ka tagay maxay sameeyeen toddoba dhaqan bay raaceen marka inaan dhaqanada kitaabka la akhriyo la iibsado
hala isku day waa si fiican buu u qoro ku jeclaysiinaysa marka hala akhriyo wuxuuna ninkaasi sheegay culimada taqriirkuba inaan la isbedilaayay da male inkastoo daariq suweydan ay dhahda sheekh dhahdo reer kuweyda wuxuu dhahdaa hadduu qofku 55 dhaafo isbedel ma karayo soo bedeli karo anoo 55 waan gaadho aadano laakiin waxaa la dhahdaa waxay dhahdaan culimada uu ninkaasi ka mid yahay la mala taqyiir anugu taasaan qaba maxaa taa ku qaba nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam xasaan ibnu saabit wuxuu islaamay isagoo 60 jira muxuuna dhintay isagoo 120 jira 60 sano dagaal buu ahaa 60 sano muxuu ahaa muslim buu ahaa marka 60 sano ku islaamay taqyiir shaamila ku dhacay gabay xun buu akhrinay gabay fiican buu akhriyay wuxuu difaacay wax yar ma la yani reerkiisa islaamku difaacay uu isbedilay tasawur uu isbedilay okay Umar bin Khattab isagoo in buu islaamay Usman isagoo in buu islaamay way isbedileen annagu waxaan naga dhaadhacsan waqtiga la isbedeliyo waan soo dhaaf macruur baan nahay la oo mudadana wax ku baran karaa la waan laazimnay darsiga horteena sheekh Muuse soo mari jiray annaga saaray waan laazimnay waxaan wadnaa imisa waa sanadkii afraad waan laazimnay alxamdulillah لازم كان وصي وضعنا لكن وين يرى تطور هذا ايفولوشن ما نتكلم تجربها الحمد لله إذا هالكي فردين لكن هالكي إنا فردينه هالكي هنك سعنه هنت استقيمنا إن شاء الله أورنه ورمحان برني محان برن محان نوكردي محان نجم مكان جزاك الله خير هذا ما يهور وانا ما خلاص جزاكم الله خيرا وما ستين انت أصلا إن شاء الله وانا جاهد هذا إن شاء الله درسيني إنه بدليسن بس إن شاء الله إنه حد ضمبه يدرسيني إنه صنعوا دونا شيء